Bismillaah, assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Asxaabteyda waan idin salaamay, kusoo dhawaada Fahiimo Show. Asxaabey maanta waxaa noo wadaa cagasaartaas oo aad u jeedaan markii aan bogo sida ay kusoo baxday. Fadlan haddaad igu cusub tahay subscribe-ta taabo, kadibna gambaleelka riix si aysan kuu dhaafin casharada dambe aan soo wado. Haddana waxaan bilaabanaynaa sidii aan u samaysanayna cagasaarteena. Waxaan u baahanahay xarigan, waa xarig jilcan. Sidoo kale cagasaartaana u baahanahay waa cagasaar ayadana jilcan. Waa cagasaar sidaas loo isticmaali karo haddaad rabtidna korka ayaad kasii quraxsan kartaa. Marka hadda aniga waxaa rabaa cagasaartan dacsada hoose inay xariga ku sameysto si ay igu noqoto cagasaar qurux badan. Marka insha Allah hadda waxaan bilaabanaynaa sidii aan u sameysanaynay. Sidoo kale waxaan u baahanahay koolada lagu isticmaalo korontada. Koolo kale ayaa jirto oo diyaarsan, ayadana waa ku sameysan kartaa mid allaale midaa haysatid. Haddana waxaan bilaabanaynaa sidii aan u sameysanaynay. Waad u jeedaan koolada ayaan kusoo shubay. Kadib waxaan rabaa xariga iyo dacsada hoose inaan isku dhajiyo oo hadhowta aysan wax kala fuqa aysan noqonin. Kooladaas ayaana ku sameyn doonaa sidii canjeerada oo kale loo soo wareejiyo ama xariga waa iska soo daba wareejin doonaa. Waadna arki doontaan insha Allah sida u sameynayo. waa cagasaar inaba caadi ahaynin. Intii taqaana cagasaarta sida loo sameysto way taqaanaa, intii aan aqoonin waxaan leeyahay ka faa'iideysta. Waa cagasaar meel walba aan diideynin. Guriga ayaad dhiga kartaa, banaanka, fadhiga iyo meel walba oo isleedahay cagasaar ayay u baahan tahay ayaad dhiganaysaa. Ma ahan inaa cagasaar ka soo gadano banaanka ama dukaamada cagasaarada lagu gado. Wax walba waa inaa baroobeyn kartid ama aad sameysan kartid sidee doonto ha kuugu sameysmaano, ama markii hore laga yaabay inay wixii kaa halaawaan oo sidii aad rabtay ay kuu noqon waayaan. Kadib laakiin wixii markaa dhowr jeer ku celcelisid waxaa kuu soo baxaysa inaad waxaasi sameysan kartid ama aad waxaas ku dhiiratid inaad sameysan kartid. Marka asxaabey soo baroobeeya, waan filayaa inaad ka heli doontaan. Aad ayay u fududaa runtii. Sidaad u jeedaan waxaana ka sameynayaa saddexdan shay oo u jeedaan waa dacsada hoose iyo xariga iyo koolada oo aan ku sameyn doono oo aan ku dhejin doono. Cagasaaro badan ayaan soo geliyay channelkeyga, cagasaaro aan ka sameynayo dun iyo sidoo kaleeto cagasaar kale oo ayadan xarig aan wax yar ka duwan aan ka sameeyay ayaa ku jiraan. Runtii waa cagasaar aan inaba caadi ahaynin. Qofka yaqaan wuu yaqaanaa, qofkaan aqoonin waxaa laga yaabaa inuu isdhaho cagasaar oo sidan u taalo maxaa waaye. Laakiin markii aad sameysatid ama aad aragtid qofkii oo sameynayo kale, waxaad arkaysaa inay tahay wax aan caadi ahaynin oo aad gacantaada ku sameysatay. Asxaabey u jeedaan sidaasaa kusoo sameeyay qeybihii ugu dambeysay ayaa hadda ii dhiman. Sidaas ayaan u soo wareejiyay, wax kaleeto aan ku sameeyay malaha. Fadlan haddaad igu cusub tahay kusoo biir Fahiimo Show. Asxaabtii hore iila joogtay iyo kuwa cusub mar labaad ayaan soo dhaweynayaa. Haddaad channelkeyga maanta ku cusub tahay subscribe-ta taabo, gambaleelkana ha iloowin. La sii share garee asxaabtaada. maasha Allah, sidaasaa u jeedaan ayay ku socotaa. waa cagasaar aan caadi ahaynin. Sidaas ayaan kusoo bogi doonaa insha Allah. Xariga qeybta ii hartay ayaan soo wareejin doonaa. Sidoo kale dacsada hoose tan hoose afar geeska ah haddii ay igu badato ama geesahoo kaleeto inaan ka jaro waa, maadaama aan sameynayo cagasaar wareeg ah. Geesaha waan ka jari doonaa. Xarigana sidoo kale haddii aan intaa rabo aan ka sameysto intii iga soo hartana waa iska jari doonaa. Adiga ayay kugu xiran tahay qiyaastaada iyo inta aad sameysanaysid. Waad sameysan kartaa cagasaar weyn ama cagasaar yar ama mid dhexdhexaad ah. Intii kaa soo harta xariga hadduu dheer yahana waa iska jare. Sidoo kale dacsada hoose haddii kugu weynaatana waa iska jare. Laakiin dacsada mar walba waa inaad jartid. Haddii aad afar geed sameysanaysid way isla ekaan lahaayeen, laakiin haddaad sameysanaysid cagasaar wareeg ah inaad geesaha kasoo jartid waaye insha Allah.
laba siba waa u samaysan kartaa, dacsada la-aanteedna waa samaysan kartaa, oo xariga ayaad soo wareejinaysaa. laakiin waxaa moodaa xoogaa inay dhib tahay. xariga bes haddaad tidha waa wareejina, waxaa macquul inay kaa kala dheeraato ama ay qalqaloox kaa noqoto. laakiin dacsada waxay kuu simaysaa cabirka inaysan kaa kala dheerdheeraanin ama uusan kor usoo kicin oo kale waxa aad sameynaysid. marka haddii aad adiga tahay qof oo hore u samaysan jiray cagsaaradoo kale, waa u samaysan kartaa. dacsada hoos waa iska dayin kartaa oo waxaa samaysan kartaa xariga oo keliya. laakiin haddii ay kugu cusub tahay maanta, waxaad samaysataa dacsada la-aanteeda ha samaysanin. waad u jeedaan walaalahayga, sidaas ayaan kusoo bogay. qaybta u dambeysa xariga qaybta u dambeysa ayaan soo wareeji doonaa. inta kalena waa sidaa idiin sheegay, maqaska ayaan soo qaadanaya oo waa iska jari doonaa insha allah. sidoo kale walaalahayga, marka aad koolada marinaysid gacanta waa inaa wax yar aad suulka ama fartoo kale aad ku riixdid si ay iskugu dhegto dacsadii iyo xariga aan wareejinayo. sidaas darteed marmarka qaar waxaa dhacda haddii aadan si fiican oo kale gacanta aadan ugu riixin ama farta aadan ugu riixin, kooladii meeshii kuma dhegayso ama sidaa rabta ma kuu noqonayso. halkaas ayaan ku ekeynayaa insha allah. maqas ayaan soo qaadanayaa, waxaan iska jarayaa xariga meesha aan ka jaray oo xariga afkiisa ugu dambeyso. koolada ayaan si fiican ugu shubayaa si aysan meesha iiga kala furfurnin ama aysan hadhowti loo dareemin meeshaas inay tahay meesha uu ku dhammaaday xariga. waad u jeedaan soomaa walaalahayga sida uu kusoo baxay. haddana waxaan ka jarayaa qaybta hoose ee dacsada. waaw, inaba caadi ma ahan asxaabteyda qaaliga ah. sidaas ayay kusoo baxday cagasaarteenii aan idinkugu talagala maanta.